wasaaradda caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka magaalada Marka ayaa gaari ambalaas ah ku wareejiyay isbitaalka guud ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Gaarigan ayaa loogu talagalay in gurmad loogu sameeyo haweenka xilliga foosha ay yihiin. Munaasabadda lagu wareejinayay gaariga ambalaaska ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Marka, isuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada iyo mas'uuliyiin kale. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada Marka oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in gaarigan loogu adeegi doono shacabka degmada Marka iyo deegaanada hoos yimaada, gaar ahaan haweenka xilliga ay foosha yihiin. Intii ka soo shaqeysay in gaarigan ay helaan degmada Marka, gaar ahaan hadda waxaan joognaa isbitaalka degmada Marka. waxaan rabaa isbitaal wax yar aan rabaa inaan brief gareeyo wuxuu yahay baabuurkan waxa waaye waa complete maternity oo dhameystiran. waxaana loogu talagalay hard to reach area, meelaha aan la gaarin inuu gaaro maamulku soo badbaadiyo inay maamulku soo umusha yaa loogu talagalay. saadaradeed wuxuu leeyahay delivery bedkii sayirtii oo lagu marin lahaa maamada, bedkii maamada la geyn lahaa, baby kitkii, oxygentii haddii in case cunuga oo u baahdo la siin lahaa, iyo wax walba oo u baahan yahay cunugaasi in la safe gareeyo ku dhan maxaa la jiray gaarigaas. gudoomiyaha maamulka magaalada Marka Cusmaan Muuse Maxamed ayaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed kaga mahadceliyay gaarigan iyo cid walba oo ka soo shaqeysay in isbitaalka la soo gaarsiiyo ambalaas loogu adeegayo bulshada magaalada Marka iyo deegaanada hoos yimaada. waxaana maanta waxaan joognaa xafladan baabuurkan wareejintiisa. baabuurkan hal bil iyo xoogo oo xamar ku xayirnaa wadadii oo maxallahay oo dhibaato badan ka jirto amniga saaf ahaan. waxaana wasiirka wasaaradda caafimaadka isagoo si qaas ah maxallahay gobolkan ugu talgalay gaarigan. gobolkan la ugu talgalay gaarigan afgooy waa la geey karay, barawan waa la geey karay. laakiin saa maanta Marka xushay inuu maanta reer Marka ugu daro maadaama baahi badan oo caafimaad magaalada ka jirto oo go'doon iska tahay. gaarigan waxaana inuu meel iska yaalo malookiin. waxaana dhaqaatiirta iyo agaasimaha iyo isuduwaha waxaana in gaarigaas maxallahay soo u shaqeyn lahaa in qof lagu badbaadiyo loo keenay in meel iska yaalo malookiin. waxaana qof in lagu badbaadiyo rabnaa in haddii haween la soo waca leele in loo sameeyo number leele in loo sameeyo qof soo wici karo, qof meelaha joogto si emergency ugu tagi karo. laakiin markuu waadi mar labaad mar saddexaad waxaa la wasaaradda caafimaadka aad ay u mahadsantihiin. istaalka intaa makaafinayso in baawar loo keenay ambalaas iyo makaafinayso. haddii shaqaalihii istaalka joogay oo lacag qaadanayeen, dhaqaatiirtii lacag qaadanayeen, istaalkii boqolkii konton dadkii lacag laga qaadayo in badan oo ku celcelinaa. waxaana wasaaradda caafimaadka xitaa 30 qof oo meeshaan istaalka 30 qof waa kalin garay kartaa in 30 qof xitaa shaqaale in loo helo. qofkii subaxdii waa saartay fingara saartay kooyto sax ka baxay inuu ka dhinto baa keenay. waxaana in qofkan maxallahay in xuquuq uu yeesho rabnaa idinkaan ka shaqeyn karo. annaga amir waa idin siina inaan ka shaqeysan rabnaa. wasaaraddan waxaan rabnaa in sidaan dadka ay u dhaantaan rabnaa. istaal badan oo aajir maxallahay Koonfur Galbeed oo dhaqaatiir haystaan, agab caafimaad haystaan, wax walba haystaan u dhameystiryihiin. istaalkan agab dadkii deegaanka u kasta alxamdulillah in badan oo baahi badan jirto waa la xaliyay. laakiin waxaan rabnaa intaas in ka badan rabnaa in dadkan lagu saacido, shaqaalaha lacag ay helaan, qalab caafimaad ay helaan, dhaqaalihii ay ku joogi lahayn inay helaan. taasna wasiirka waa soo jeedinayna. wasiirka in badan waa laga balan qaaday. haddana waxaa leenahay wasiiru waa deegaan waa ognahay reer Marka soo fiiray. Maxamed Qadar Warsan Radio Shabeellaha Hoose.